السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحابتا كحران جانل كحانج شو برامجكين لو وحو نقون دونا دلال كميدا دلالكي وقيستي مدحوينها الدالكا كوريا دا وقوي كين جوم اون فضلا انتان الموضوع قد قلين وحنكا عود سنيانا جانل كسبسكرايب سارتيد تابتين نقام بلالك سيوكو سودو مقالة عن سودقنو دلالكي وقيستي انتو حلكا هيي كين جون اون وحلقو قياسا اني احايين تضواتن دل kuwaasoo isugu jira shacab wasiiro iyo ehelkiisaba mowduuceena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa shan ka mid ah dalalka ugu yaabka badnaa ama ugu caansanaa iyo cidda uu u geystay Kim Jong Un. Kim Jong Un waxa uu dilay adeerkiis aabihiis la dhashay sababta uu dilayna waxay ahayd ma uusan taageerin ama uma sacbatumin markii uu xilka qabtay. waxa kale uu dilay wasiirkiisa gaashaandhigga Hyun Yun Tishol sababta uu dilayna waxay ahayd waxa uu ku lulmooday ama ku hurdooday iyadoo la sameynayo bandhig ciidan waxa uuna u dilay si arxan darro ah waxa uuna ku dilay madfaca lidka diyaaradaha dilkaas oo ka dhacay xarunta ciidamada lagu tababaro saddex waxa uu dilay nin ka mas'uul ahaa garoomada kubadda cagta sababta uu dilayna waxay ahayd garoomada ka mid ah ayaa waxa uu ku arkay kursi jaban afar waxa kale uu dilay Kim Jong Un injineerkii naqshadeeyay garoonka diyaaradaha sababta uu dilayna waxay ahayd kamuusan helin qaabka loo naqshadeeyay garoonka diyaaradaha shan dilkii uu dilay ninkii qabay eedadii haddaba waxaa yaab leh qaabka arxan darrada ah ee uu dilay waxa uu sameeyey inta uu qaawiyey ayaa waxa uu dhex geeyey 120 kuwaasoo la gaajaysiiyey ama aad u gaajaysnaa dilkani waxa uu soconayay muddo gaaraysa saacad waxaana fiirsanayay isaga iyo 300 oo jeneraalo iyo wasiirro isugu jira waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe saar taabana gambaleelka si uu kugu soo dhaco muuqaal walba aan soo dhigno